السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلانتي في سلوى هذا برنامج كنا جارك حساه نيوز فور ما أنت وح بربركي فديا أبو مرسل عينته وكمل أبوانين الصوماليات كل أسوح ويسوي قانا أنا قلنا أبوان صوماليات قلنا قانا أبوانا وقصدوينا مركورة وكاجا ما تعلن الناس أجيب التانك أسوأ أجيبتي عزومات نكوا عزومة حساه وما هتنتهي أوكي أنا ولا سيدو كلا إنك ما هتعلن إياه برنامج كان حساه مقع قرحان بهرت ليه marka arrimaha bulshada iyo kulay baa looga hadlaa marka inaad igu casuuntaan iyo inaad barnaamijkan hal abuurtidba waan kaaga mahadcelinayaa waana dhawahay ma sha Allah marka waa ku soo dhaweynaynaa wad maxaan ku yiraahdaa waxa jira inkastoo asiyaasi ahay abwaan aad iyo aad hal abuurkaaga iyo suugaantaada waxa ku cabirtaa marka waxaan jeclaysanay inaan su'aalo kooban ka weydiino hadaa iyo ogolatid waa i weydiin kartaa kulley intii maaragtay macquula inaan ka jawaabo diyaar insha Allah okay abwaane wadankii wuxuu yeeshay hoggaan cusub dawladda Soomaaliya sidee u aragtaa hoggaaminta dalka iyo madaxweyne xasan sheekh maxamed horta siyaasad deegaan siyaasi ahayna waad sheegtay ayadii baan igu bilowda aad marka sideed u aragtaadaas waa iska way fara badan taasaan u dareemayo laakiin waxaan u arkaa isbedel ku inuu yahay caafimaad yaani madaxdu inay isbedesho caafimaad iyo horumar iyo dimuqraadiyad iyo ku dayasho wanaagsan baan u arkaa qofka muwaadinkan inuu sidaa u arka waayo laakiin systemku isbedelkiisu isbedel gadaal in loo socdaa iyo isbedel hore in loo socdaa labadaba wuu noqon karaa laakiin anagu filashadeena ilaahay wuxuu yiri waxaad iga malaysataan baad iga helaysaan anagu wanaag baan ka rajaynaynaa isbedelka iyo hogaaminta cusub khayr baan ka rajaynaynaa iyo hore loo socdaa insha Allah okay haddaan muxuu ahay isla su'aashaas ana mataaneeyo maxaa laga filan karaa waa islaada dawladda cusub hadda timid maxaa laga filan karaa dee kulley isla jawaabtii waxaan ka filanaynaa wanaag kulley madaxweynuhuna horta madaxweynaha hadda uu xanuunsan yahay baa horta caafimaad sariican Allah siiyo caafimaad baa u rajaynaynaa jirkalaha iyo jiridka ma qoslay waa hogaankii dalka weeye marka ilaahay caafiyo waxaan ka rajaynaynaa inuu hogaamintiisii hore iyo xilligiisii hore iyo khibradii hore asagoo wax ka baranaya wixii ka dambeeyana inta wanaagsan kaga dayanaya meesha ay marayso inuu ka dhaqaajiyo oo hore loo socdo ayaan ka rajaynaynaa una dardaarmaya okay dawlad sideeda markay cusub tahay waxa waaye wanaagna waa sameyn kartaa qalad badanna waa jiri karaa aad iyo aad madaxweynaha maadaama bulshadii يعني قف كل حجر أتاه يعني عد كيسنا وحق بدلي كرا مدحوينها صوماليات أنا حسن شيخ محمود حق رد الدار waxaan kula dardaarmi lahaa kulay waaban Israaciilay muhiimadaydu anigu horta hadalka caadiga kuma ficnay suugaan ma wax ku cabira suugaan hadda aan kula dardaarmay oo aan ugu talagalay way jirtaa riwaayad leh dhisan gabay leh markeedaan duubi doonaa insha Allah anoo matalaya yani shacbiyad ama shacabka Soomaaliyeed asagana ula hadlaya inuu yahay kurkii qaranka iyo astaantii qaranka wixii asaga ka murgacdaana aan aaminsanahay qof kasto Soomaaliya inay ka murgacdeen ama gaareen marka sidaan horeyba u sheegay khimradaadii hore wax ka baro wixii ka dambeeyay inta wanaagsan kaga dayo waxaan leeyahay balanteenu waa shaqo horumar iyo bulkeeti meeshii la dhigay mid kale in la dul saaro oo aan nuqsaan u gelin intaasaan u dardaarmaya aad iyo aad u maasantahay intaas haddaan ugu soo tagno dawladda cusub iyo waxyaabaha aan u rajaynay abwaane waxaa jirtay hees dhaanta ah oo xaqiiqdii noqotay oo مليونات فيوز سميسي مليون فيوز او تيك توك هدي اهان لهي
haddii maxaan ku yiraahdaa Facebook ay ahaan leh beelan taqabsatay oo leeyahay xabiibul malaayiin abwaane anoo kula kaftamay oo campaign waqti kuna soo aaday campaign madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo صح abwaane heestaas horta sharaxaad yar naga sii midda xigta misal lacag ku qaadatay heestaas intaas maxaa ku yiraahdaa sharaxaad waa naga sii inta lacag ku qaadatay waa noo sheegaysaa horta waa su'aal wallahi qosol miirana markii si loo fiiriyana isweydiinteedu ay muhiim tahay waa su'aal jawaabteeda iyo ujeedkeeda iyo isweydiinteeduba aysan ayada ku koobnaysaan aaminsanahay waxyaalo badan muhiim u noqonaysa oo ayada tusaale u noqonayso marka heesta xabiib malaayiin ha aniga sameeyay oo qaaday marka kulay sabab bayna lahayd yani sabab nasuul baa jira moogtahay aadiya waxa jira horta hal ku dhiga heesta aniga ma samayn waxa sameeyay bulshada anuguna bil xaqiiqan waxaan wax ka sameeyaa dareenka bulshada waxaan matalaa dareenka bulshada sugaantana waxaan ku saleeyaa kuna sameeyaa masaalixda guud ee bulshada inta badan eragan gabar ardayad ah oo reed tog dheer ah ayaa soo qortay aadiya 2019 ahayd baan malaynaya nin dhalinyaro oo sidoo kale aan friendis ahayn oo reer beledweyne ayaa igu soo taageeray hameenada kamida abwaano in suugaan laga sameeyo buu ku fiicnaa erga xabiibul malaayiin in suugaan laga sameeyo ku fiicnaa laha biiri waa sax baan ku iriyo waxba waa isaga gudbayde oo de in maartay qof la iska amaano iyo waxaas waxa bariirtugayga ma ahayn ka soo gudub 2021 markay ahayd xaaladuna aad u qalafsanayd siyaasadda aad isugu murgasanayd yaan hotel niman dhalinyaro asxaabaan ugu soo galay Muqdisho ah erayga laftiisa bay falanqaynayaan mid kamid ayaa wuxuu igu yiri abaan fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad ka samaysid suugaan isma ogaya isku xilina maaha dhalinyaradii hore laba xilli oo kala duwan qofkii erayga sameeyay kii koobaad awal hees ka sameeyay yiri kuwaan iskama warqabaan isku gobolna ma joogaan waana bulshada Soomaaliyeed markii saa ay soo xasuusiyeen xaaladda taaganna aan fiiriyay baraha bulshada aan qiimeeyay si socodkan soo socdayba guriga u sii socday waa sameeyay erayada ugu soo dhaceen adigu waa dhameystiray muusiga waxa saaray haykal yar in la yiraahdo iyo Ustaad Shimberley sidoo kale asaguna qayb ka qaatay oo xagga farsamada aad uga dhisay marka sidaas ay ku baxday midaan marka su'aashii ahayd maxaad ku qaadatay waa horta waa su'aal mutaxan waaye laakiin meel bay muhiim ka tahay oo isweydiin guud oo waxa jirta waxyaalaha campaign-ka dadku ka aaminsan yahay in qof siyaasi loo ololeeyo ama la support gareeyo yani qof kasta waxa ku soo dhacaysa in lacag la kala qaatay maxaa Abdullaahi Farmaajo xaqiiqdii waxa taageera shacab Soomaaliyeed oo aad u fara badan waxa xarag markaa isaystaana waa siyaasiyiin shacabku isku dan way wax kala duwan baa loo kala sheegaa si loo kala jiito laakiin maxaa Abdullaahi Farmaajo waxaan hubaa dadka intiisa badanna ay og tahay kuwa xitaa naqdiya ay og yihiin la siyaasigu xaqiiqda iyo waxa uu isticmaalayo waa kala labo inuusan Abdullaahi Farmaajo lacag isticmaalin amaan la amaanayo inuusan lacag ku bixin qof lidku ah oo caayo asaga lagu hayana inuusan lacag ku laalushin ma fahant marka heestan iska dareenka bulshada ahayd anuguna dareenka bulshada ayaan wax ka sameeyaa sidaas ay ahayd waxa tusaale kuugu filan aniga heesta markaan sameeyay heesaha alaaba saas oo kala muuqaal baa loo qabtaa muuqaalka kharash yar baa lagaaga baahan yahay oo dhalinyaradii markay isku keenayso oo muuqaalada qurxoona iyo labiskii oo dhaqanka iyo wixii lacag bay u baahan yihiin lacagtaas waliba aad u yar ma heli karin ya si oo cawsudaysi oo maqala soo si maqala soo daay inta dadkali yani haddaan iibsanayo lacag badan bay goysaa ya laakiin waxa tusaale kuga ah muuqaal baan u sameyn waaya xitaa ya
marka wixii la doono waa la iska oran karaa waxa xaqiiqa in lagu oranayo dad badan la oranayo qofkii loo garanayo xitaa inay isku beel yihiin siyaasiyiintu waxay isticmaalaan inay yiraahdaan oo ku abiyuusaan si ay dadka kale uga horkeenaan qabiil ku taageeraya kan kalena waxay u isticmaalayaan lacag la siiyay marka falilahi alxamdu waxaan iska qadiyad bay ahayd dabayl min Allah iyo dadka gashay waay ma fahamtay waxna laga bedeli karo marka taasuna sidaas ahayd assalaamu calaykum okay madaxweynekii madaxweyne maxamed Abdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha madaxweynkiisa oo dhamaaday ilaa haddana maxaa ku yiraahdaa shacabka ay aad ugu dhagan yihiin dawladda taageersan yihiin dawladda dhalatay yani sometimes aad arkayso dawladdii dhalatay in la ignore gareynayo marka maxaa lagu xasuusan doonaa istaada maxamed Abdullaahi Farmaajo horta maxamed Abdullaahi Farmaajo maxaa lagu xasuusan karaa oo muhiim ah waxaan oran karaa aniga hogaamintiisa in doonto anigu dadka siyaasadda falanqeeya aan ahayn laakiin aan dareenka bulshada iyo shacabka aan wax ku matalo waxaan soo qaadan karaa laba qodob oo aan isleeyahay waa muhiim hadda isweydiiso dalkeena maxaa haysta maxaa ragaadiyay maxaa horumar u diiday iyo adduunka inay ku daydaan oo kheyraadkooda ka faa'iideystaan aniga waxa ii soo baxa laba qodob waa musuq iyo qabyaalad inta kale oo dhan oo nuxuusnimo ah oo faqri leh oo jahli leh waxaasoo dhan waxaa dhala labadan maxamed Abdullaahi Farmaajo wuxuu la diriray labadan musuqi iyo qabyaaladii wuxuu isaga qabtay hangool ganale buu isaga qabtay waxaan oran karaa waa sababta kaliya oo uu ku kasbaday yani qulubta shacabka Soomaaliyeed runtii shacabka Soomaaliyeed oo bisayl iyo daal fara badan dareemaya oo qofkii midkii aqoon leh oo wax bartay iyo kii aan wax baran labaduba ay maanta ka dheregsan yihiin yani wadadii la soo qaaday mirihii laga gurtay nooc ay ahaayeen qof walba uu garanayo musuq iyo qabyaaladii markuu hangool ku qabtay waxaan oran karaa waa wax lagu xasuusan karo waana midda ilaa hadda uu ugu nool yahay qalbiga shacabka Soomaaliyeed runtii intaasaa looga dayan karaa baan leeyahay oo muhiim ah yani wax kasta wanaagsan oo uu sameeyay ama u suurtagalana asal waxa waa labadan abwaane su'aasha ugu dambeysay barnaamijkeena maxaa kula dardaarmaysaa shacabka Soomaaliyeed oo talaa u soo jeedinaya shacabka maxaa kula dardaarmi lahayd shacabka waxaan kula dardaarmayaa horta dawladnimadu lama kala leh waxaana la yiri dawlad xunu dawlad la'aan ka fiican yani waxa looga jeedaa waana cilmiba oo nabigeena noo sheegay sallallahu alayhi wasallam yani system dawladeed la'aantiis inaan noloshu khayr noolahayn marka dawladnimada in la wada ilaalsado oo qofka waxaan leeyahay qofka inaad shakhsiyan u jeceshahay oo taageersan tahay inaad taageersanayn waxa ka muhiimsan dawladnimada in la ilaaliyo kow qof in la iska caashaqo macna ma sameynayso qof in la iska caayo na macna ma sameynayso wixii la taageeraya ha noqdeen system iyo hogaamin wanaagsan haddii xitaa madaxda wax si ka yihiin oo dhaliilayso si akhlaaq ah oo qaabaysan oo la jecel leh oo wadaniyad ah inaad ula taliso ayaa muhiim ah ee waan ka soo horjeedaa saas oo ahaan jiray waxaas yani wax macna ma sameynayso aflagaadada iyo ayada madaxda in laga daayo waxaan qabaa hogaanka cusub duco iyo dardaaran in la siiyo intaasaad ku garab istaagi kartaa markaad shacab tahay intaasaad awoodaa inaad u ducayso marka u ducaynayso uma ducaynaysid xasan sheekh waa shakhsi waxaad u ducaynaysaa adaa ducaystay ilaahu hogaanka noo hagaaji markaad tiraahdo adaa ducaystay sax inaad la dardaaranto laakiin haddaad mar kasta boog iyo dhaliil iyo wixii saa tiraahdo qofkii laftiisa waa bini aadan ma fahanta wuu raro gubyoonaya waxa isma kara ma garata marka waxaan kula dardaarmayaa dawladnimada ha la ilaalsado madaxda ha loo duceeyo ha loo dardaarmo madaxdana waxaan leeyahay challenge-ga siyaasiga ah dalkeena wuu curyaamiyay shacabkeenana dulmi buu ku yahay adduunkiina waa naga reebay ha laga digtoonaado ha laga fogaado masaalixda shacabka ha laga fakaro haddaad mucaaradtihiin iyo haddaad muxaafadtihiin assalaamu calaykum abwaan waa mahadsan tahay intaana soo gabagayno waraysiga waxaa jiray gabay hadduu ku tala gashay yani hadda ka hor xornimada maadaama lagu jiro toddobaadkii xorriyadda dalkeena oo qaatay oo gumaysta aan ku xiroonay waxaa jiray gabay hadda ka hor ka tiraysa xarunta UNDP oo na guulaystayaasha aad ku soo gashay
gabigaas wala wadaay kartaa intaan soo xirin waraysiga ma gabiga waa dheer yahay mar gaar aan duubayna إن شاء الله عادي هذا ما صنتهاي وكان علينا سو جيبتانكي ورئيس قرح النصيصي يتلوين كذا يتدارك بدن له إن شاء الله إلهي نتلك آمين آمين عادي هذا ما صنتهاي هذه كامل أنت أيام كسو كوبينا ورئيس جاركا ولا يلنا أبو مرسل أنت تاني يقول أنت بس إذا سوينا بتقولي السلام عليكم Oxaha News hoyga xogaha sugan